isku soo noqod wanaagsan daawadayaal xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Ibrahim Cali Nuur ayaa warkaasi inoo soo diray. xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxay ansixiyeen miisaaniyadda 2020 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle. kulanka waxaa soo xaadiray 52 mudane waxaana cod gacan taaga ku ansixiyay 51 xildhibaan waxaana ka soo horjeestay hal xildhibaan. miisaaniyadda la ansixiyay ayaa gaaraysa 14 milyan 10984 waxayna isugu jirtaa maamulka Hirshabelle qarashaadka uu ka helo dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo lacagaha ka soo xarooda gudaha deegaanada Hirshabelle. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa sheegay codeynta miisaaniyadda 2020 inay tahay mid ansaxa. maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii 3aad 2020 waxaa baarlamaanka Hirshabelle isugu yimid kalfadhigii 7aad kulankiisa 15aad golaha xeer-dejinta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana soo xaadirtay 52 xubnood waxaana ansixisay 51 ayaa ansixisay aqlabiyad markii codka loo qaaday miisaaniyadda ku talgalka sanadkan aan ku jirno 2020. dhinaca kale wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka Hirshabelle Luqmaan Xaaji Barqab ayaa u mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. 14 milyan 10984 oo ah dakhliga qiyaasta dakhliga heli karo iyadoo lagu qoondeeyay qarashka baxayo hay'adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaan halkan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka Hirshabelle wasiirada iyo kolleegiska anigoo ka hadlaya magaca wasaaradda annagoo rajeynayno insha Allah taala inaan ka soo dhalaalno hawsha culus ee naloo idmaday si dakhliga ku qoran miisaaniyadda ee gaaraya 14 milyan 10984 inaan ka dhabayno iyadoo meeshaas ay ku cadda ilaahay ka soo gali karaan dakhligaas. ansixinta miisaaniyadda 2020 oo ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa noqonaysa miisaaniyaddii ugu dambeysay maadaama wax ka yar 10 bilood ay ka harsan tahay dhismaha baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabelle. Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal Jowhar. mahadsanid Ibrahim Cali Nuur.